Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa barnaamij cusub oo aan ugu magac daray maxay naga sheegeen qaybtiisii koowaad. Barnaamijkan ayaa waxaa ugu talagalay inaan ku soo qaato qoraa xilli hore Soomaalida wax ka qoray oo aan Soomaali ku tarjumo. Balse intaanan barnaamijkan bilaabin waxaan rabay inaan tilmaamo in kanaalku leeyahay community oo aan maalin walba soo geliyo arrimo xiiso badan. Khiyaartay la socotana aan su'aalo ku weydiiyo marka kanaalka subscribe samay la socona waxyaalaha aan page-ka community-ga soo geliyo. Iminka aan u soo jaleecno barnaamijkeeni. Ninka aan maanta barnaamijka ku soo qaadanayno waxa weeye Bernard Brain oo ahaa nin ka tirsan baarlamaanka UK. Ninkaas ayaa waxa uu booqday Somaliland oo Britain gacanta ku haysay sanadii 1958, 2 sano ka hor xornimadii. Waxa uu dhintay sanadii 2000 isagoo baarlamaanka waddankaas ku jiray muddo ka badan 40 sano. Mr. Bernard ayaa waxa uu booqasho ku tagay Geeska Afrika isagoo xoogga saarayay Somaliland oo Britain gacanta ugu jirtay. Goortuu ka soo laabtay Hargeysana waxa uu jeediyay hadalkan oo aan soo tarjumay. Sida tan ayuu u dhigay hadalkiisii. Markii aan ku socday Geeska Afrika, nin khabiir ku ahaa halkaas ayaa waxa uu iga digay inaan ku dhicin khalad ay sameeyeen dad badan oo iga horreeyay, oo ah inaan mushkiladda Soomaalida ku fiiriyo isha geela. Inkastoo ay tahay inaan qirto Soomaalidu inay yihiin dad soo jiidasho leh oo dad qancinta ku fiican, taasoo keentay inay kiiskoodii iga gadeen anigoonan xataa aanan fahmin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan meesha ku soo arkay ayaan idinla wadaagi doonaa. Geeska Afrika oo hoy u ah dadka Soomaalida, daruur jiq ah ayaa dul hoganaysa. Waa inaanu maskax yeelannaa oo garannaa inaan gobolkaanu ahayn meel fog oo dad wax magarata ay degan yihiin. Adduunku maanta waa isu furmay, xitaa dadka ugu faqiirsan caalamka ahamiyad ayay u leeyihiin aadanaha. Dadka Soomaalidu badankood waa xoolo dhaqato reer baadiye ah oo ku dheggan xeerkoodaas qadiimka ahaa ee qabyaaladda ku salaysan. Waxay ku nool yihiin dhul badankiis dooxooyin yahay oo lama degaan u dhow, laakiin ay ka helaan daaq xoolahooda ku filan, xoolahaas oo ah hantida keliya ee ay leeyihiin. Soomaalidu waa dad qurux badan, raganimo leh oo aad u caqli badan. Laakiin saas oo ay tahay waa dad aad u xasaasi ah oo si fudud lagu xiisa gelin karo. Iyagoo ahna dad sida loo hadlo yaqaana, aadna u xiiseeya siyaasadda, inkastoo aysan dhinaca siyaasadda aysan weli qaan gaarin. Awoowayaashood ayaa waxa ay ka soo tallaabeen gacanka cadan, iyadoo Soomaalidu si tartiiba ugu faafay Geeska Afrika. Soomaalidu waa dad aan daalin oo mar walba socod ku jira, sida dadka kale ee reer baadiyaha. Ma xushmeeyaan xuduudaha dawladuhu samaysteen, hadba meeshii ay naq ka helaan ayay u hayaamaan. Soomaalidu 5 dawladood ayaa kala qaybsatay. Qaybta uu Talyaanigu xukumo oo kor u dhaafayaan dadku 7 milyan. Qaybta Britain oo ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 650,000. Qaybta Faransiisku xukumo oo qiyaastii ah 30,000. Qaybta Itoobiya haysato oo 450,000 lagu qiyaasay. Iyo ugu dambayn Soomaalida NFD oo ah 60,000. Soomaalidu iyagoo saa u kala qaybsan ayaa qabiilada dhexdooda shaki kala qabaan oo ay dhexdooda kala qaybsan yihiin. Iyadoo ay saa tahay, Soomaalidu waa hal qowmiyad, waxay ku hadlaan hal luqad, waxayna haystaan hal diin. Qalbiga waxay ka wada aaminsan yihiin inay yihiin hal dad oo waxyaabo badan ka dhexeeyaan. Halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee warbixintii Bernard uu ka diyaarshay siyaasadda Soomaalida guud ahaan ka hor xornimadii. Insha Allah, qaybta labaad berri filo. Barnaamijkan oo aan ugu magac daray maxay naga sheegeen waxa uu noqon doonaa taxane. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, fadlan like saar. Haddii aad u bogi weyday oo dhaliilo ku aragtayna, fadlan soo gudbi tabashadaada, dislike na saar. Intaan mar kale kulmayno, assalaamu calaykum.